ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa maanta daafuray laba mashruuc oo lagu horumarinayo adeegyada caafimaadka dalka oo kala ah damal caafimaad iyo talaalka COVID-19 kuwaasoo wax weyn ka bedeli doona marka la hirgeliyo tayada iyo baahida caafimaad ee xilligan ka jirta dalkeena. ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa tilmaamay in mashaariicdani ay ku soo beegmeen waqti baahi weyn loo qabo oo deegaano badan oo muddo dheer ay maamulayeen kooxaha qawaariijta laga sifeeyay isla markaana ay dadku u baahan yihiin adeegyo kala duwan oo ay dawladooda ka helaan. waxaa ilaahay mahadiya mashaariicdani waxay ku soo aadeen xilli baahi weyn loo qabo in dadkii laga xoreeyay khawaarijta iyo terroristiga in la gaarsiiyo serviceska in la gaarsiiyo xilligii ugu darnayd oo loogu baahi badnaa way marka maadaama dadkii la xoreeyay 15 sano ay nimankii dul fadhiyeen oo wiilkii ama gabadhii ku dhashay ay buqaad yihiin hadda oo ay reero samaysan karaan oo inta ay dul fadhiyeen de markay ka tageen dadkii waxa loo baahan yahay in la muujiyo inaan dawladnahay oo uga fiicannahay oo ayagu hadii ay baahi ku dileen oo ay jahli ku dileen inagu inaynu baahidana ka saarayno jahligana ka saarayno shaqo weyn baa u taala marka dawladda Soomaaliyeed mustawayaadkeeda kala duwan heer federaal iyo heer states ka haday noqdaan labadaba mas'uuliyad aad weyn baa saaran waxaa laga rabaa dhulkaas la xoreeyay oo leenaga rabaa oo culayska ugu weyn oo inaga saaran yahay inaan caafimaadkii siino inaan biyihii siino inaan korontadii siino in aan booliiskii iyo nabadgelyadii siino inaan judiciary iyo maxkamadihii iyo garsoorkii inaan geyno intaba waa leenaga rabaa waxaa leenaga rabaa inaan maamuladii u dhisno iyo golayaashii deegaanka inaan u dhisnaa leenaga rabaa waxaa leenaga rabaa inaan dib u heshiisiin ka samayno iyo reconciliation meelaha dadka isku direen ay wada kala geeyeen ee ay isku madaxa isu wada geliyeen inaan walaalayno oo dib ay isugu soo noqdaan aan u baahannahay intaas oo dhan waxaa la isku yiraahdaa oo aynu u bixinay stabilization. wasiirka caafimaadka ayaa sheegay in mashaariicdan ay qayb ka tahay qorshayaasha wasaaradda ugu igmanta qaranka inay hirgeliso gobolada markii hore la doortay in mashruucan laga fuliyo in badan oo kamid ah waagaas la dooranayay waxa maamulayay oo gacanta ku hayay khawaarijta oo hadii imanka ay gacanta ku sii hayn lahayn suurgal ay noqon lahayn in adeegga la gaarsiiyo laakiin waxa ilaahay mahadiis ah gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe in maanta deegaano ballaaran oo markii hore ay cadawga haystay in maanta xor ay yihiin oo laga xoreeyay adeeggan uu gaari doono lagana fulin doono ayaa ilaahay mahadiis taasna waxay xoojin doontaa universal health coverage kana way ballaarin doontaa adeeg bixintii iyo maarta mas'uuliyadda wasaaradda caafimaadka ka saarneed meelaha la xoreeyay in loo gurmadana qayb ay ka noqon doontaa mas'uuliyaddaas inaan gudano oo meelihii la xoreeyo in la gaarsiiyo adeegyadii in la gaarsiiyo iskuuladii la gaarsiiyo cadaaladii la gaarsiiyo amnigii la gaarsiiyo dadkii ay dareemaan in khawaarijtii argixisada ay ka raysteen. labadan mashruuc ay fulinayso dawladda Soomaaliya ayaa waxa ku baxaysa lacag ku dhow 200 milyan oo dollarka Mareykanka ah waxaana ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre hoosta ka xariiqay in lagu xisaabtami doono hay'adaha hirgelinta mashaariicdani loo xil saaray si loo xaqiijiyo miro dhalkooda. arrinta ku saabsan in dawladda Soomaaliya ay iyadu ay dadkeeda ay service ka gaarsiiso waxay leedahay dhadhan khaas ah oo ah inay isku xirto qofka muwaadinka ah iyo dawladdiisa isku xirku halkaas ka imanaya qofka muwaadinka ah in ay masalan cid kala wax siiso iyo inuu arko in calankiisii u taagan yahay oo dawladdiisa ay service ka siinayso oo kala duwan tahay aad bay u kala duwan tahay waana u kala dhadhan fiican tahay. Nasr Bashiir Ali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.